السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومالي نبوت هذا صدن كبشة جون سنة لبكم لباتن يلح أو كوباغن شن طبعا كبشة محرم سنة كن أفر بغلا فرتن يسديد تاريخ الهجرية ده كسور هذا مركله إيه برنامجكي ورر كما أنت qodobada aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah oo maanta mar kale ruushka kaga yaabsatay weerar xagga cirka ah oo loo adeegsaday ku dhawaad 500 oo diyaaradaha droniska ah oo lagu beegsaday gobollo kala duwan. magaalada Moscow ee caasimadda ah ayaa ka mid ah meelaha la beegsaday iyadoo ciidamada ruushkuna ay sheegteen inay soo rideen intii badneyd diyaaradaha. Iran oo mar kale si cad u sheegtay inaysan ka tanaasulayn gacan ku haynta Mareyka Hormuz uuna ka mid yahay dhulkeeda. ciidamada Iran oo shaaciyay in dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay ay la galeen koox ay ku sheegeen argagixiso gooni goosad ah. Israa'iil oo weerar hor leh oo dhimasho iyo dhaawac sababay ka geysatay jidda Gaza inkastoo ay jirto rasaas joojin afka uun ah. dibadbaxyo ballaaran oo ka dhan ah muhaajiriin si gaar ah kuwa Afrikaanka ah oo u gilgilay Koonfur Afrika waxaana laga cabsi qabaa rabshado. dhammaan qodobadan iyo kuwo kale oo faahfaahsan wixii war ah ee kale degdeg ah soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wararka maanta. soo dhawaada markale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino. haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka. Nimca Cabdikariim Timacade oo barnaamijka la daadihinaysa ayaa inagu bilaabaysa wararka caalamka kuwada safka hore ku jira. Nimca mahadsanid Mawlid. maanta waxaanu ku bilaabaynaa wararka dhanka dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyadoo colaadda labada dhinacba ay ka sii darayso isla markaana ay si weyn u socdaan duqeymaha isweydaarsanayaan ayaa saacadihii ugu dambeeyay Ukraine waxa ay qaaday weerar culus oo xagga cirka ah oo ka dhinaa magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka ah iyo gobol kale oo dalkaasi ka mid ah. mas'uuliyiinta Ruushka ayaa maanta sheegay in ciidamada difaaca cirka ay xalay iyo barigiisa ka soo rideen tiradhan 419 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ee droniska ah kuwaasi oo Ukraine ay ku soo weerartay qaybo badan oo ka mid ah dalka iyadoo Moscow ay ka mid ahayd meelihii ugu waaweynaa ee la beegsaday. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in weerarada ay ku fideen 19 gobol oo ay ku jiraan gobolka caasimadda ay ku taal ee Moscow, jasiiradda Crimea oo Ruushka uu kala wareegay Ukraine sanadkii 2014 iyo gobolka Krasnodar sida ay sheegtay wasaaraddu. dhammaan diyaaradihii droniska waxaa lagu soo waramayaa in ay soo rideen nidaamyada difaaca cirka. duqa magaalada Moscow Sergey Sobyanin ayaa isaguna hoosta ka xariiqay in ciidamada difaaca cirku ay burburiyeen 50 diyaarado dronis ah oo ku sii jeeday caasimadda. aanu xusay in ilaa hadda aan la diiwaan gelin waxa dhimasho ama dhaawac ah iyadoo kooxaha gurmadkana loo diray goobihii ay ku dhaceen burburka diyaaradaha la soo riday. weeraradan cusub ayaa waxay imaanayaan maalin kadib markii ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen duqeymo uu Ruushku ka geystay magaalooyinka Dnipro, Zaporizhzhia iyo Kharkiv ee dalka Ukraine iyadoo mas'uuliyiinta Ukraine ay sheegeen in ilaa 6 qof lagu diray weerar gantaal ah oo ka dhacay Dnipro halka 3 qof ay ku dhinteen weerar drones ah oo lagu beegsaday rakaab ku sugnaa Zaporizhzhia halka magaalada Kharkivna haweeney 23 jir ay ku geeriyootay bam lagu weeraray magaaladaasi iyadoo 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. dhankiisa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Ruushku weli uusan ku guuleysan si buuxda inuu ula wareego gobolka Donbass inkastoo dhowr jeer dib u dhigay qorshihii uu dejistay ee qabsashada gobolkaasi. arrintaasi uu ku daray in haddii Moscow aysan joojin dagaalka ay mar kale dib u dhigi doonto himilooyinkeeda military ee Donbass. dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa galay
sanadkiisii shanaad iyadoo labada dhinacna ay sii xoojinayaan weerarada ay ku qaadayaan gudaha dhulka ay iskaga soo horjeedaan. waa tahay markana colaada bariga dhexe. gudoomiyaha guddiga amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee baarlamaanka Iiraan Ibrahim Azizi ayaa mar kale waxa uu ku celiyay mowqifka adag ee Teheraan ee ku aadan gacan ku haynta marinka Hormuz, isagoo sidoo kale ku baaqay in la soo afjaro sida uu yiri gumeysiga Israa'iil ee koonfurta Lubnaan. Aziz ayaa sheegay in gacanka Hormuz uu yahay qayb aan la goyn karin oo laga goyn karin madaxbannaanida qaran ee Iiraan, isla markaana maamulka marinbiyoodkaasi uu si buuxda ugu jiro gacanta Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Ibrahim Azizi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in madaxbannaanida Lubnaan aan lagu xaqiijin karin kaliya hubka dhigista xoogagga iska caabinta, balse lagu xaqiijin karo soo afjaridda gumeysiga iyo weerarada sida ay baahisay warbaahinta dowladda ee IRIB. isla wararka marinka Hormuz, shirkadda la socodka howlaha dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee Marine Traffic ayaa sheegtay in maraakiibtu ay sii wadeen isticmaalka gacanka Hormuz maalmihii la soo dhaafay, inkastoo ay jiraan walaacyo amni oo ay ku jiraan weeraro lagu qaaday 2 markab maalmihii Jimcihii iyo Sabtidii. shirkaddu waxay sheegtay in la diiwaan geliyay 108 markab oo ka gudbay marinka Hormuz 3 maalmood ee la soo dhaafay. waxay sheegtay in dhaqdhaqaaqyada ugu badan ay dhaceen 26kii bishii Juun oo ahayd Jimcaha, markaasi oo la diiwaan geliyay 48 markab oo ka gudbay marinka Hormuz, halka 27kii bishan oo Sabti ahayd la diiwaan geliyay 38 markab oo halkaasi ka gooshay, halka 28 bishan oo Axad ahayd la diiwaan geliyay 22 markab oo kaliya. waxaana xusid mudan in tirakoobyadana ay ka hooseeyaan kuwii jiray ka hor weeraradii ugu dambeeyay ee Mareykanka iyo Iiraan isu weeraarsadeen, iyadoo Marine Traffic ay sidoo kale diiwaan gelisay Khamiistii hore 54 markab oo ka gudbay marinka Hormuz, halka 70 ay mareen halkaasi Arbacadii, taasi oo ahayd tiradii ugu badneyd ay tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Mareykanka oo Israa'iil kaashanaysa iyo Iiraan oo geesta kala kahor colaadan. celcelis ahaan 130 ilaa 140 markab ayaa maalin kasta hore uga gudbi jiray marinbiyoodka. wararka Iiraan haddii aynu ku sii soconno, ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah Iiraan ee IRGC magacooda loo soo gaabay ayaa sheegay inay burburiyeen koox hubeysan oo ay ku tilmaameen argagixiso gooni-goosad ah oo ku sugnaa gobolka galbeedka Azerbaijan ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi. taliska ciidamada Xamse Zaid al-Shuhada ee IRGC ayaa sheegay in ciidamadoodu ay iska hor imaad kula galeen kooxdaasi dhul buuraley ah oo u dhow magaalooyinka Mahabad iyo Branchar, iyadoona la adeegsanayay taageerada hub culus. IRGC waxay sheegtay in 4 xubnood oo kooxda ka tirsanaa lagu dilay iska hor imaadka, isla markaana lagu qabtay hub iyo qalab kale howlgalkaasi. goorsii horeysay oo maanta wakaalada wararka Tasniim ee Iiraan laga leeyahay ayaa ku warantay ama soo warisay in 2 askari oo ka tirsan ilaalada kacaanka Iiraan la dilay, 2 kalena la dhaawacay kadib weerar hubeysan oo ka dhacay magaalada xuduudda ku taala ee Baab ee galbeedka wadanka Iiraan. war kale oo la xiriira xaaladaha colaadeed ee Iiraan iyo Mareykanka, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar Majid al-Ansari ayaa sheegay in ergada Mareykanka ee kala ah Jared Kushner iyo Stephen Witkoff ay soo gaareen magaalada Doha, balse aysan kulamo toos ah la yeelan doonin mas'uuliyiinta Iiraan. afhayeenka ayaa ku nuuxnuuxsaday in labada ergey ay la kulmi doonaan dhexdhexaadiyaasha, isla markaasna ay ka wada hadli doonaan horumarka wada xaajoodida, iyadoo aan la sheegin wax kulan ah oo Iiraaniyiinta ay la yeelan doonaan. Majid al-Ansari ayaa sidoo kale waxa uu ka shanqariyay in ilaa hadda aan Tehraan lagu wareejin hantidii laga xayiray oo dhan $6 bilyan oo qorshuhu ahaa in lagu wareejiyo marka la saxiixo heshiiska ay la gashay Mareykanka.
waa tahay dhanka siyaasadda gudaha Mareykanka xildhibaanka dimuqraadiga ah ee laga soo doorto gobolka Texas Greg Carter ayaa sheegay inuu taageeri doono hindise qaanuuneed lagu joojinayo gargaarka militariga Mareykanku uu siiyo Israa'iil oo ka doodi doono Kongareeska Mareykanka. Xildhibaankan ayaa qoraal uu ku baahiyay barta X waxa uu ku sheegay in xukuumadda Israa'iil ay dambiyo dagaal ka geysatay Gaza isla markaana Mareykanka ay gelisay oo lugaha u gelisay colaadda Iiraan. waxaana uu yiri dadka Mareykanka ma aha inay sii maalgeliyaan hub dheeraad ah oo la siiyo Netanyahu. Hindisaan waxaa soo jeediyey xildhibaanka jamhuuriga ka tirsan Thomas Massalu magacaabo kaasi oo ku baaqaya in la joojiyo 3.3 bilyan oo dollar oo Mareykanku sanad kasta siiyo Israa'iil. Hindisaha ayaana la filayaa in cod loo qaado dabayaaqada toddobaadkan. waa xagaag markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa maanta shaacisay in 8 Falastiiniyiin ah lagu dilay halka 26 kalena la dhaawacay 24 saac ee lasoo dhaafay weerarada duqeymaha Israa'iil ka geysanaysa dhulka Falastiin, taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee dadka dhintay dagaalka Israa'iil ee marinka Gaza tan iyo Oktoobar 2023 inay gaarto 73,066. warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda ayaa lagu sheegay in isbitaalada Gaza la geeyay 8 meyd iyo 26 qof oo dhaawac ah muddadii 24 saac ee lasoo dhaafay ahayd. waxaana wasaaraddu aysan faahfaahin ka bixin duruufaha ay ku dhinteen ama ay ugu dhaawacmeen dadkaasi weerarada, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay sii wadaan weerarada gardarrada ay ka geysanayaan Gaza sida ay sheegtay wasaaradda, isla markaana jabinta xabad joojinta Oktoobar 2025 ay weli Israa'iil sii wado iyadoo duqeymo iyo rasaas ka wada qaybo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza. dalka Koonfur Afrika maanta oo Talaada waxa uu wajahayaa dibadbaxyo ballaaran oo lagaga soo horjeeda muhaajiriinta, kuwaasi oo sababay in shaqaale badan ay guryahooda joogaan, ganacsiyo badan albaabada loo laabo, isla markaasna gaadiidka dadweynaha uu hakad galo. kumanaan muhaajiriina gaar ahaan kuwa ka yimid dalalka kale ee Afrika ayaa ka baaqday shaqooyinka, halka qaar badan ay horay uga baxeen goobihii ay deganaayeen kadib markii dibadbaxayaashu ku baaqeen in dadka dalka sharci darrada ku jooga ay iskaga baxaan. magaalooyinka Johannesburg iyo Durban ayaa waxaa isugu soo baxay kooxo dibadbaxayaal ah, kuwaasi oo qaarkood wata uro. dibadbaxayaasha ayaa ku eedeeyay muhaajiriinta sharci darrada ku jooga dalka inay qaateen shaqooyinkoodii ay lahaayeen muwaadiniinta Koonfur Afrika, iyagoo sheegaya in xaaladaasi ay tahay mid aan la aqbali karin, waxaana jira walaac laga qabo in xaaladdu isku beddesho rabshado hubaysan. waa hagaag daawadayaal goordhow waxaanu gudbaynaa falanqayn ku aadan ismarwaaga ka taagan hindisaha dhexdhexaadinta Iiraan iyo Mareykanka iyo guud ahaan bariga dhexe. balse marka hore aynu ku hakano qadar xay maanta oo si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaasheena koowaad iyo labaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTube-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka, idinkoo warar degdeg ah macluumaadyo kale iyo faallooyin ka akhrisan kara oo ka heli kara bogga internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirno HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waagaag markan aynu u tallaabno xubinta falanqaynta ee barnaamijka oo noolaaba ku eegno arrimaha xasaasiga ah ee dunida ka taagan, inagoo sidoo kale ku soo qaadana barnaamijka waxyaabaha warbaahinta caalamka ay wax ka qorto amaba qowaradu ay ka yiraahdaan arrimaha xasaasiga ah ee taagan. bal markan Mawliid oo falanqaynta jooga, bal aynu u weydiino dhowr su'aalood oo ku saabsan xaaladaha xasaasiga ah ee bariga dhexe iyo halka ay si guud wax marayaan. Mawliid, maalmo ka hor heshiis ayaa waxaa laga gaaray xaaladda bariga dhexe, sidoo kale waxaa dhacay weeraro iyo weerar celis ay Mareykanka iyo Iiraan isweydaarsadeen. xaaladdu weli waa mid colaadeed oo nabad ka fog. marinka Hormuzna sidii hore maaha ama loo qorsheeyay ee la rabay in isku socodkiisu ahaado. xagee haddaba wax ka qaldan yihiin Mawliid oo iska qaban la'aadahay arrintu heshiis iyo sidoo kale in weli weeraradii ay socdaan? نوع horta arrinta weerarada labada dhinac waxay ku dhawaaqeen inay joojiyeen weeraradii goosgooska ahaa. Mareykanka ayaana si rasmi ah habeen hore ugu dhawaaqay arrintaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay in Iiraan wasadalka u dhigay ay codsatay wadahadal in la isugu yimaado.
wuxuuna sheegay in maanta oo talaadaha lagu kulmi doono magaalada dooxa ee waddanka qatar laakiin sida hadalku u yiri arrintu ma ahan iiraaniyiintu waxay sheegeen inaysan jirin wax kulan ah oo ay dalbadeen waxay kaloo sheegeen inaysan jirin wadahadallo foolka foola oo ay u tegayaan magaalada dooxa inay halkaasi kula yeeshaan wafuud maraykan ah laakiin waxay xaqiijiyeen wafdi farsamo inuu tegi doono magaalada dooxa laakiin sidaynu ognahay qatar waxay ka mid tahay dhexdhexaadyaashii ku guulaystay heshiiskii ugu dambeeyey ama is afgaradkii maraykanka iyo iiraan dhex maray 14 qodob ka koobnaa marka waxaa moodaa in madaxweynaha maraykanka xogta loo sheegayo ama isagu ay tahay inuu wax aan jirin uu faafinayo ay kala duwan yihiin haddii arrintan ay tahay mid loo sheegay oo la yiri iiraan baa dalbanaysa kulan in la isugu yimaado arrintaas waa suurtagal waxaa dhici kartaa leeyahay inay isbeen fartiimayaan dhexdhexaadiyaasha si gaar ah Pakistan iyo Qatar iiraanna laga yaabay inay u sheegayaan war kale oo ay leeyihiin Trump hadalkiisa waxba maqlanina anagu ma sheegin warkaas laakiin miiskooda hadalka imaada oo iyagu ay danaynayaan nabad iyo wada xaajood in arrintu ay ku idlaato laakiin nabadda sidaas oo kale kuma timaado sida qobarada ay sheegayso nabadda waxay ku timaadaa in wax cad miiska la soo saaro oo la isku yimaado waa suurtagal inaysan jirin isbaan fartiimka oo la leeyahay ama tuunka laga qabo Qatar iyo Pakistan inay Trump leeyihiin Iiraan baa dalbanaysa wada hadal in la kulmaa la doonaya laakiin isagu uu ciyaarayo dagaal maskaxeed si shacabka Mareykanka iyo dadka aaminsan in Iiraan ay leedahay awaamirta ugu dambaysa iyo go'aamada ugu dambeeya arrinka Mareykanka Hormuz meesha uga saaro iyo Iiraan inay ku guuleysatay dagaalkii inuu meesha ka saaro oo iska dhigaya isagu nin wax yeerinaya markuu leeyahay Iiraaniyiinta heshiis baynu la gaari doonaa heshiiska waa la gaaray mar horeba arrinta meesha ay laadahay waxa weeyaan 14 qodob baa lagu heshiiyey madaxweynaha Mareykanka Paris buu ku saxiixay 14 qodob qodobka koowaad Mareykanka ayaa ku xadgudbay oo dhigaya in la joojiyo dhammaan xabadda dhammaan furimaha Lebanon ay ku jirto ciidanka Israa'iil Lebanon way ku sugan yihiin rabshado ayay sii wadaan Mareykanku wuxuu kale ku xadgudbay sida Iiraaniyiintu ay ku eedeynayaan qodobka shanaad ee 14 qodob heshiiska ka kooban oo dhigaya isticmaalka Mareykanka Hormuz waxaa lala kaashan doonaa Iiraan Mareykanku marka waxay bedeleen qidadii oo waxay rabaan Mareykanka Hormuz in laga sameeyo wadiiqo imaaraadka carabta biyihiisa iyo Qatar waxa uu jeedaa Oman rali ahaada iyo Oman in intaas la isticmaalo laakiin Iiraaniyiintu arrintu ka soo horjeedaan waana iyaga duqeeyay maraakiibta dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay kadibna Mareykanku weerar ku qaaday kadibna ayaguna ay ka jawaabeen marka waxa moodaa Iiraaniyiintu inay aaminsan yihiin in Mareykanku isku dayayo Israa'iil inuu ku sii hayo koonfurta Lebanon ama aysan ka bixin in la sameeyo marin ka madax bannaan Iiraan oo sidaasna Mareykanka Hormuz uu ku furmo Iiraanna waxaa la yiraahdaa Mareykanka Hormuz waa hubkeedii ay ku hubaysanayd waa nuclearkeedii marka meesha la isku haya waa meeshaasi Iiraaniyiintu waxay 100% eedda u saarayaan xaaladdan taagan iyo jahwareerkan iyo isafgarawaaga iyo ismaan dhaafka Mareykanku inuu mas'uul ka yahay talabana wuxuu rabaa inuu si xeeladaysan arrintii oo caqli ah wax uu dagaal ku waayay inuu ku helo maskaxdaas iyo farsamadaas iyo siyaasaddaas oo muxuu yahay waxaasi Mareykanka Hormuz inuu furmo haddii Mareykanka Hormuz uu furmo oo shidaalkii uu soo laabto iyo socodkii uu soo laabto maraakiibta meesha ay marto kuwa Mareykanka ay mari karaan kuwa dagaalka ay mari karaan Iiraan markaas gacanta waxba uguma jiraan laakiin Iiraan waxay rabtaa marka inay arrinta adkayso oo Mareykanka Hormuz aan laga wada hadlin waynu maqlaynaa Ibrahim Aziz hadalka ka soo yeeraya waa tahay dhanka kale Mawlid kulankii Trump Iiraan ayaa dalbatay maanta oo dhacaya dooxa waxaa muuqata inaysan ahayn kulankaasi mid si toos ah u dhexmaraya Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka wafuudka kala socota haddaba maxaa Qatar iyo dooxa ka soconaya waxay u badan tahay in wada hadallo ay yeelan doonaan dhexdhexaadiyaasha iyo wafuudda Mareykanka ka socota dhexdhexaadiyaasha iyo wafuudda ka socota Iiraaniyiintu waxay aad u danaynayaan lacagta 6 bilyan ah oo xitaa madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian uu sheegay
in qadar ay ogolaatay waa dhici kartaa marka maraykanku cagta inuu saaray lacagta qadar bay taallaa 12 bilyan baa taal oo iiraan ay leedahay maraykankaana xayiray waxaa lagu heshiiyey marka waxay tahay 6 bilyan in loo sii horumariyo iiraan marka bacdama aysan furin marinka hormuuz oo xitaa ay diiday wadadan laga sameeyey imaaraadka carabta iyo cumaan oo kadibna ka dhacaysa gacanka cumaan ilaa iyo badda carabta inay diiday sida qariirada halkan ka muuqatana weeyaan qaybtan hoose imaaraadka ayaa iska leh sida ka muuqata waa biyaha imaaraadka carabta qaybta ay soo laabmayso qariiradu ama marinka hormuus uu ka qallocanayo qaybta sare waxaa iska leh cumaan kadibna waxaa la soo gelayaa marka hoose loo soo daadego biyihii imaaraadka kadibna biyabadeedka cumaan marka iiraan waxay way diidan tahay maraykanku marka maxay rabeen in jidkan la furo maraakiibtu ay maraan halkan iiraan lacag la siiyo 6 bilyana la bilaabo markaas in laga soo saaro miinooyinka qaybta iiraan ay maamusho oo miinooyin badan ay ku jiraan walow laga yaabo iiraan xitaa inay miinada dhigtay qaybtan cumaan oo xagga sare oo ka soo laabanayso qariiradu marka arrintu waa arrin aad iyo aad u adag iiraaniinta waxay leeyihiin wadahadal toosana ma jiro dabcan wufuuddan ma aha wufuuddii sarsare ergadii wadaxaajoodka iiraan waxaa hogaamin jiray ninka la yiraahdo gudoomiyaha baarlamaanka qalibaaf maraykankana JD Vance madaxweyne ku-xigeenka ayaa hogaamin jiray hadda meesha waxa tagaya marka waa gudiye farsamo arrimihii farsamada laga wada hadlaya suurtagal ma tahay in la kulmo waayo iiraaniinta waxay leeyihiin maraykanku xabajoojintiina ma ixtiraamin oo xabadii way socotaa dhanka Lubnaan anagii baana la soo weeraray 2 mar lacagtina lama fasaxin marka marinkan hormuus ma ku laabanayo sidiisii hore ilaa iiraan ay hesho waxa ay doonayso muddadaas 6 maalmood waxay rabtaa iiraan inay ku hayso sidaas inta ciidanka Israa'iil koonfurta Lubnaan ay joogaan inta lacagta laga xanibay aan loo soo fasaxin inta maraykanku uu hanjabayo inta Trump uu leeyahay iiraan madaxdeedan laynaya wadankan burburinaya waxay rabtaa meesha inay meeladana ku hayso sidaasna ay ku sii haysato marinka hormuuz waa tahay mawlid waxaad ka dhawaatisay in iiraan ay diidan tahay in la sameeyo dhabo kale oo dhinaca badda cumaan la marayo oo dhinaca sidoo kale imaaraadka la sii marayo maxay tahay marka sababta ugu weyn ee u diidayso in dhanka badda cumaan loo weecdo oo dhinaceeda laga weecdo marka hormuuz la isticmaalayo horta markii hore heshiis waxaa jiray iiraan iyo cumaan dhex maray cumaanna sideedaba iiraan xiriir fiican bay la lahayd waa dowladda carbeed ee keliya ee cambaaraysay weerarkii lagu qaaday iiraan oo maraykanka iyo Israa'iil ku qaadeen waa dowladda kaliya ee carbeed ee u hambaliyeysay hogaamiyaha cusub ee iiraan Mujtaba Khamenei waa dowlad dhexdhexaadin jirtay labada dhinac waa dowladda kaliya ee adduunka oo idil maaha carabta maaha muslimka adduunka oo idil ku tiri maraykanka dagaalkaaga ma ahan waa dagaal Israa'iil ku gelisay shiinuhu ma oran maraykanka ruushkuna ma oran arrintaas marka waxay keentay in meel loogu qoray marka dagaalku joogsadana dhowr jeer baa la handaday Trump xitaa marbu wuxuu yiri cumaan gebigeeda waa burburinayaaba sababta maxay tahay marka waa ku dhiiranaanta ay ku dhiiradeen arrinkaas marka gacanta la maroojiyay bacdama loo hanjabay cunaqabateen baa la saarayaa baa la yiri kadib waxa la yiri Iiraan heshiiska aad kula jirtaan inaa wada maamushaan dariiqan joojiya waa sida qobarada ay sheegayso marka waxa la yiri waxaad ogolaataan in adinka badda qaybta aad leedihiin iyo qaybta imaaraadka laga sameeyo dariiq waana markuu tagayay xogayaha muuraha dibadda Mareykanka gobolka Bariga Dhexe Marco Rubio iyo shirki ka dhacay Bahrain Manama ee GCC-da ee Mareykanka uu la yeeshay arrinta marka way ogolaatay Cumaan way gacanta la maroojiyay laakiin Iiraan baa marka meesha timid waxay tiri waxba kama jiraan qodobka shanaad ee heshiiska wuxuu dhigayaa wadiiqadaas la samaynayo iyo meesha la marayo iyo wax kastoo marinka hormuus qoseeya in lagala tashado jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan marka heshiis ka baxsan Iiraan meeshan ka socmaayo Iiraan inta marka taas bay taagan yihiin taasa marka waxay keentay in Cumaan marka iyadu ay si gaar ah arrintii ugu aragto in Iiraan ay ka hortimid laakiin iyadu hadii diidi lahayd oo dhihi lahayd ma anagu Iiraan baa arrinta heshiis kulanahay Iiraan baa isla maamulayna markaas iyadu laftigeeda si fiican loo xanuujin lahaa laakiin gacanta la maroojiyay way ogolaatay marka awood kale ma aysan jirin laakiin cidda awoodda haysata marka waa Iiraan oo tiri maya waayo madaxweynaha Mareykanka isagaa saxiixay qodobka shanaad bay ku jirtaa wax walba oo marinka hormuus ku saabsan in lagala tashanayo jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan
sidaas ayaa ugu qoran heshiiska. iiraan marka waxay leedahay waa kana heshiiskii adigu ma saxiixday, wax aad wadi jooji aan ka wada tashana Maraykan, waxayna ku xiran tahay intaanu qodob in la fuliyo. halkaas marka arrintu taaganta waa tahay gabagabada ayaynu joognaa Mawlid. haddii halkaasi la kala taagan yahay oo sidaas loo kala fog yahay, xagee loo dhaqaaqayaa? maxayse ku dambeyn doontaa xiisada bariga dhexe? arrintan waa 50%. heshiis in la gaaraa waa 50%. dagaal inuu dib loogu laabtaana waa 50%. inta Israa'iil ay ku jirto koonfurta Lubnaan, inta Donald Trump uu hanjabayo, inta ciidanka Maraykanku ay ku sugan yihiin saldhigyada Maraykanka ee Bahrain, Kuwait, Ciraaq, Qatar, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Cumaan laftigeeda, inta maraakiibta diyaaradaha xambaaran Maraykanku ay joogaan badda Cumaan, badda Carabta, badweynta Hindiya, Iiraan marinka Hormuus gacanta ay ku haysanaysaa. maanta waxaa hadlayay nin khabiira oo la yiraahdo Maxamed Marandi. su'aal baa la weydiiyey, waxaa la yiri Iiraaniyiinta sidee bay u arkaanba in meeshan xaaladda ka jirta aysan weligeed hagaagayn oo Iiraan ay ku dhawaaqdaa inay samaysanayso hub nuclear. marka wuxuu yiri gudaha doodaas way ka socotaa, laakiin xukuumadda weli ma aysan bedelin mowqifkeedii. marka Iiraan nuclearkeed hadda wuxuu noqday marinka Hormuus. sidaas ayay ugu dhaganaanaysaa ilaa Trump xal uu keeno. waa suurtagal Trump laftigiisa inuu rabo xaaladdu sidaan iskaga daba jiijanto ilaa iyo November, doorashada markii la galo midterm clear ama doorashada waqtiga dhexe November dhici doonta, dagaal buuxa markaa in loo soo jeesto. waa suurtagal dhinaca kale inuu rabo in arrintu sidaan iskaga socoto, Netanyahu doorashadiisa la gaaro, Netanyahu meesha uu ka baxo, markaasna xal nabadeed la helaa. dhammaan wadiiqooyinkaasi oo dhan ayaa imaan kara oo furan, laakiin midda ay tahay lama oga. waxayna ku xiran tahay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. laakiin waxaa la isku raacay qudrada oo dhan, kuwa siyaasadda, kuwa ammaanka, kuwa ciidamada. Iiraan marnaba inaysan ka tanaasuleyn marinka Hormuus. haddii marinka Hormuus la qabsado, waa Iiraan la qabsaday. marka waa in awoodda Iiraan la burburiyaa. halkaas marka arrintu kusoo biyo shubanaysaa. waa hagaagaad baad u mahadsan tahay Mawlid. wixii arrimahaasi kasoo kordhaa daawadayaasheena barnaamijyadeena dambe ayaan ugu soo gudbin doonaa. intaas ayaan kusoo afmeerinaa guud ahaanba barnaamijkii wararka maanta oo halkan si wada jira nimcati macadeen Mawlid Xaaji Cabdi ayaan kaga soo teganayeen. si aad u heshaan wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino, haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan ama waadan hore ugu xirnaynina inaga soo biira. tan iyo saarag dambe, amaan Allah.